annaguna waxaan aad u rajaynayaa in caawo kale ay noo tahay habeen aad u qiimo badan ummadda Soomaaliyeed in badan oo hadda meesha fadhisa kama warqabto qiimaha ay ku fadhiyo calanka gadaasheena ka babanaya oo aad indhihiina ku arkaysaan waxaa lagu beeray dhiig Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa dhiigooda ku beertay haweenkii Soomaaliyeed ayaa dhiigooda ku beeray maanta sharaftaas uu ku taagan yahay iskama imaanin xornimo iskama timaado waddan ma dhismo ilaa dhiig lagu daadiyo maanta waxaan yacni aan caawa xusaynaa waa sanad guuradii ka soo wareegtay xorriyaddii ummadda Soomaaliyeed 1960kii waa 57 guuradii xilligaas ka soo wareegtay waxaan leeyahay waa habeen aad u wanaagsan waa habeen aad u farxad badan waxaan leeyahay hambali ayaan leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed hambali ayaan leeyahay dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan guud ahaan gaar ahaan degmada Beledweyne shucuurta ku dhaqan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen munaasabadan xuskeeda aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu sharfan tihiin waxaadna wehelan tihiin mar walba in aad qiimaysaan xorriyaddiina waxaana rajaynayaa in aan aad u fiirino calankeenna 27 sano dib u dhaca uu ku dhacay iyo dadkeena baaba'ay waxaan aad u rajaynayaa caawa in ay noo noqoto mar labaad laba kaclayntii xorriyadda inay noqotaan rajaynayaa insha allahu tacaala warka ma aragti in la sii badiyo waxba saas kuma badna waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed hadda ka soo qayb galay xafladani inay aad u maqlaan warkan bal mar kale ha inoo dambayso dal kale ha inoo dambeeyo degmada Beledweyne dadka ku sugan waxaan ka codsanaynaa inay u istaagaan qarannimadii inay u istaagaan midnimadii inay ka baxaan qabiil inay ka baxaan wixii lagu jiray kala qaboobnaantii caawa inay noogu dambaysaan aad u rajaynayaa maxaa yeelay midnimada waxay tahay waad aragteen adduunkooda wuxuu lagu aqoonsaday waa calankaas adduunkooda wuxuu astaantaas ayuu lagu gartay bal waxaad fiirisaan degmadan Beledweyne oo aad aragtaan inta ay ka kooban tahay inaan kala qaybsanaanaa ma sax bay noqonaysaa ma qarannimaan ku gaaraynaa walaalayaal dulli ha aqbalina shacbi weynow dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad ka gudubtaan wixii la soo maray waxaan noogu filan darsi wixii aan soo marnay ma doonayno qabiil inaan ku dhaqanno ma doonayno qurun qabyaalad inaan samayno waxaan doonaynaa midnimo waxaan doonaynaa hal gacan inaan ku adeeganno waxaan doonaynaa dowladnimo waxaad arkaysaan wiilashiina qaaligaha agtiina lagu dilayaa waxaad fiirsanaysaa waxyaabaha dhacaya walaalayaal dowladnimadu sidaas maaha dowladnimadu waxaa weeyaan in la helo dal in la helo shacbi in la helo maxamura sharci iyo in la helo dad fuliyo dadkii fulin lahaa waa ciidanka dadkii waa dalkii dalkana waa dadki diyaar ma u tihiin reer Beledweyne inaadna barbar istaagtaan qarannimadeennii aan soo ceshanno sharafteenii aan soo ceshanno aan ka bilowno degmada Beledweyne raalligiina ma tahay run ma idinka tahay ilaahay ka baqa warkaad sheegaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun war waxaadan samaynaynin hayeelina waxaadan adinka yeeli doonin afka ha ka dhihina qalbigiina iyo maxaan ku dhahdaa iyo qowlkiina ha israacsanaado saasaan idin leeyahay reer Beledweynow waan is arki doonnaa waan is ogaan doonnaa waxaan doonaynaa inaan soo celinno midnimadii degmadaas waxaan doonaynaa magaaladan hal furay leedahay furaheeda ninkii daba mara wuxuu arki doonaa wax fara badan oo nagala kulmi doonaa